Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Buugaagta iyo wax walba oo la qoro waxa ay argagax geliyaan kuwa raba inay daboolaan runta woolosooyinka. Ma aha inaad gubto buugaag si aad u burburiso dhaqan, keliya dadka ka jooji inay akhriyaan. Raid Bradway. Akhrinta buugaagta wanaagsan oo dhami waxa ay la mid tahay la sheekaysiga dadkii ugu wanaagsanaay ee qarniyadii tegay. Rene Skrtys. Haddii aad doonaysid inaad noqotid qoraa, waa inaad laba shay samaysaa. Ugu horreyn, wax badan akhridaa, wax badanna qortaa. Stephen King. Meel kasta oo aan dhibaato ku arko, halkaas waa meesha aan rabo inaan ka tago, kana qabto wixii aan awoodo. In aad samayso waxa aan dadka kale samayn karin waa karti. In aad samayso waxa aan kartidu samayn karinna waa hanadnimo. Will Henry. Qofna ma awoodo inuu dib u noqdo oo uu soo bilaabo nolol cusub, laakiin qof kasta ayaa bilaabi kara oo samayn kara dhammaad cusub. Maria Robinson. Qaladka ugu weyn ee aad samayn karto inta aad nooshahay waa ka cabsashada inaad qalad samaysid, waxaa yidhi Alberto Hubbard. Waxa aan inta badan jeclahay inaan dhex socdo roobka si aanu qofna u arkin oohintayda, waxaa yidhi Charlie Chaplin. Sida ugu habboon ee dad loo baabi'iyo waa in loo diido lana tirtiro garashada taariikhdooda. George Will. Fuleeyadu waxa ay dhintaan marar badan ka hor dhimashadooda, geesiyaduna hal mar, waxaa yidhi William Shakespeare. Wax kasta oo maskaxda qofku ka fikirto oo ay aaminto waa ay samayn kartaa, waxaa yidhi Napoleon Hill. Wax ka baro guuldarradaada, ha ka cabsan in aad qalad samayso. Khibraddu waa macalinka ugu wanaagsan. Anigu waxa aan wax ka bartay guuldarrooyinkayga, waxaa yidhi Eric Spoelstra. Marka aad guusha ugu baahato sida aad neefta ugu baahan tahay oo kale, markaas ayaad guulaysan doontaa, waxaa yidhi Eric Thomas. halkaas ayuuna muuqaalkiina ku egyahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.